طلعت عليه عيوني تاليا أحسست فيه كأن سطوره فجر وعطر وقد ضم. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا مولاي على كل نعمة، ومن جملة النعماء قولي لك الحمد، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. صدق الله العظيم. موضوع aan rabno kalimo in aan ka dhaxanoonto Ilaahay noo fududeeyo oo aad maqlaysiin waa sifaadka ahlu jannaha iyo sifaadka ahlu naar. waa mawduuc aad u ballaaran in labada baan kaga wada gaaraynaayo laga yaabaa, bal marka hore aan ku horumarna ahlu jannaha sifaadkooda, calaamaatu ahlu janna. qofka muuminka ah oo ahlu jannaha calaamaadkiisa, qofka inuu yahay ahlu janna maxaa lagu garanaya, inuu ahlu naar yahayna maxaa lagu garanaya. xaqiiq ahaan ahlu jannanimada iyo ahlu naarnimada oo qofka mustaqbalkiisa wuxuu noqon doono xaqiiq ahaan ilaahay baa og subxaanahu wa tacaala. xaala taas waxay ku xihan tahay qofka khaatimadiisa ay ku xihan tahay. wuxuu ku dambayn doonaa aakhiru cumri, wuxuu ku dambayn doona ilaahay baa garanaya subxaanahu wa tacaala. marka keliyaha ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaad buu bixiyey. ashkhaas ilaahay ma hebel iyo hebel ma dhihin. hebel baa ahlu jannaa, hebel baa ahlu naara, hebella ahlu jannaa, hebella lama dhihin. laakiin alqur'aan alkariim iyo sunnatu rasuuli mustafa sala allahu alayhi wasalam markaan fiirino tilmaamay bixiyeen oo ahlu jannaha waa la tilmaamay, ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaamo ayuu ku tilmaamay. ahlu naarkana tilmaamo ilaahay ku tilmaamay. marka tilmaamaha an baa la sheegi karaa oo marka aad isku miisaamayso sifaadka tilmaamaha ilaahay ahlu jannaha ku tilmaamay, haddii lagaa haayo waa rajaad leedahay, bas xusnu lkhaatima baad ilaahay weydiisanaysa iyo in ilaahay camalkaada aqbalo. haddii sifaadka ahlu naarka laga haayana towbadaad u degdegaysaa, ilaaha weydiisanaysaa inuu ku toosiyo wadada saxda xaqa in ilaahay kugu duwo khaatamadana ku hagaajiyo. marka runtii xaqiiqada waxa weeye insaanka bani aadamka markuu camal wanaagsan uu samaynayo oo cibaado samaynayo uu dadaalayo, camalkiisa daahirka uu fiican yahay, xaqiiq ahaan ilaahay baa garanay. camalka daahirka ah, salaada iyo soomka iyo aan tukanayno, waxyaalo badan buu ayuu camalka saalixa, camalka daahirka wanaagsan wax badan buu u baahan yahay. marka ugu horeysa wuxuu u baahan yahay camalka oo cibaadada ay waxaan samaynayno niyo saalixa, niyo wanaagsan waa in la helaa. xaqiiq ahaan daahiru shariica marka la fiiriyo, qofka daahirkiisa haddiiba khayr nooga muuqdo, khayrna u malay inuu islaamkana faray. ilaahay uu yidhi: walowlaa id samictumuuh danna almu'minuuna waalmu'minaatu bianfusihim khayraa.
المؤمنين تخير اسكم ملايان قف كيف الدلال لو أركهايو وأمرت عبادة دي لازمها هايو ظاهر كان إن خير الله ملايو أهل الجنة يهل اسكم ملايو إن أهل الخير يهل اسكم ملايو خير اسكم ملايو وعدين تينو نفرسوا واسدا سويا واسدا صار له ولا صعون كرام محل هذا خير لسكم مرين وحايمانه ماشي شر لسكم مرين اللي استهم يستو اللي سامين وايو اللي سكر صونام وايو حبضان باك ايمانه مركا اسلام صدرت هذا اي ظاهر كان ان خير لسكم مرين ايو نفرح يا ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا رواية كلا يلا شغير والنبي عليه الصلاة والسلام ظنوا بالمؤمنين خيرا مؤمنين خير الملايين مركا خير بانسكم ملايين أما عمل كان ظاهر كان قفك وسمين هاي عمل كان وعوبة هي النية يوبة هي النبي عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى نوى البوحو نيستي أيوليه ني صالح يوبا هاي عمل كان سمين أو حويا ني صالح هذا محل قوضا ني أيوبا هي ولي بالنية صالحة حتى أو ونكسن ني ونكسن وحويا وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى عملك إلى هاي درتي سلقنه إلى إلهي سبحانه وتعالى وحي القرآن كيسكرين كوحكوري وأمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين مركو إلهي نبي سنة ورمي هذا كدليل قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وحاتر هذا نبي محمد وأني محالف فري أن إلهي عابده أني والدين عبادة السبب صافية لها إخلاص هو مهم إخلاص قفك مؤمنك إنه عمل كيس ترى الله هذا مركب وحويان عملك وحبه هي إخلاص وهذا غمارمان من الله بعد حويان عملك وحبه هي على اعتقاد الصحيح اعتقاد في عن عقيدة في عن وحبه هي دا عقيدة هذه إيمانك هذا كي قرآن كتلمامي كي حديث نبي الله الشيخ هذا عقيدة هذا أهين عقيدة الكتاب والسنة هذا عقيدة هذا أهين وهذه وحيالا بدن إسكا من سنتهي وخرافات أما إسلام كان كفي عنه أما دلاه بعابد يسوع لكن سقرض أو عابد يسوع أو شركيات قدر يسوع وعمل هذا عقيدة في عنكوفة دينين وحبك سوقات مره إخلاص وإن لا هذا عمل هذا إخلاص لجوايو ومرك إلى عبد يسوع أمان دون إكاتهاي أما عبادة ذي بتكون قرابة يسوع نفتح هذا نقول الله كويس لا إكاتهاي نقول له هل هو أمانة ذات كل راعينا كل جعلادن ما تدري هل هو ماذا هل هو وحيا هل هو وينيه طلب الجاه عند الناس طلب المنزلة وطلب الشرف عند الناس هذه إكاتهاي عمل هذا حبتر ماي اللي هي القرآن سبحانه وتعالى وعقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قفك إلهي إنه لكل إلهي إنه عابد الرب إلهي إنه رجينا جلدي الرب وإلهي ناتكب البادين رب إلهي رجوهم كلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا عملا ونكسا حسنين ولا يشرك بعبادة ربه أحد عبادة ربه يسوع حبل وذاجن وحكل منفعة الدنيا منفعة كلا أمان دون يوجدون يستطس يوعظ ومن كبع وخياء يستطس كي أمان جعلك والنغم كمنافقين تسلق قرآن الرشيد والنغم كمنافقين توي إلهي يريد
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. markay tukanayaan munaafiqiinta wahansi bay ku tukadaan istatus bay ka tahay wa alladhiina hum yuraa'uun ku ilaahaydu way istatuska waxa weeyaan camalka dar alla ahayn waxba tari maayo waa loo khasaaraya marka camalka ikhlaas buu u baahan yahay اعتقاد wanaagsan buu u baahan yahay qofka inuu rabbul caalamiin kaliya ku xiran yahay waxdaaniyada ilaahay in qalbigiisa ay ku weyn tahay cadamada ilaahay in qalbigiisa ku weyn tahay wa xaqiiq ahaan u rumaysan yahay arkaanul islaam wa arkaanul iimaan waxa la yiraahdo lixda arkaanul iimaan sida ay yihiin waa inuu dhabaan ay ka tahay qofka tu'minu billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil aakhir wa bil qadri khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala sida waa inay dhabka oo wax kale aan ku jirin markaas oo camalkaadu wuxuu noqonayaa camal wanaagsan ayuu noqonayaa camal saalax buu noqonayaa camalka saalax shuruudiisu waa la socotaa qofku inuu mu'min yahay iimaan dhaba leeyahay haddaan sheegayn waa inuu iimaan leeyahay mu'min uu yahay waa inuu camalka ilaahay dartiisa u sameeyaa waa inuu camalka qofku uu sameynayo calaa wafqi sunnati rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam camalka qofku uu sameynayo camal sunnada nabiga waafaqsan waa inuu yahay macnaa dalika adiga haddaad tukanayso u tuko sidii nabigu u tukan jiray calayhi salaatu wasalaam haddaad soomayso sida nabigu u soomayo u soom haddaad xajinayso sida nabigu u xajinayo u xaj wax kastoo aad qabanayso suubanaha waa inuu kaaga horreeya calayhi salaatu wasalaam aad ugu dayanaysaa ilaa waxaa weyn ilaahay wuxuuna faray in aan nabigeena ku dayano calayhi salaatu wasalaam laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana ayuu ilaahay rasuulka dayasho wanaagsan ba idinkugu sugnaatay marka taa laga helo qalbi fiican iimaan fiican itibaac fiican markii laga helo kadib haddana waa inaad tahay nin wataas waa calaamada koowaad ama sifada koowaad oo min sifaati ahli aljanna ahlu jannaha maarta ilaahay qur-aankiisa ku sheegay ilaahay ku tilmaamay ahlu jannaha sifaadku tilmaamooda waxaa ka mid ah waa dad mu'miniina oo mukhlisiina dar alla oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u socday inay yihiin wax badan baad qur-aanku ku aragtay ilaahay uu leeyahay in aladiina aamanuu wa camiluu saalixaati lahum jannaatun naciim lahum maqfiratu ajrun kariim lahum dadka iimaanka iyo camalka suuban laga helay inay wanaagsan ahlu janno yihiin ilaahay qur-aankiisa wax badan buu ku sheegay marka tilmaanta koowaad oo ahlu jannaha calaamadu waa qofka inuu ahlu janno yahay waan soo sheegnay qofka inuu ahlu janno yahay khaatimadiisay ku xihan tahay khaatimada iyo ku xihan tahay khaatimadana waa qayb xataa qofka iimaankan islaamka afka sheeganay iimaanka wax qayba qofka qalbigiisa ku jiro wey annaga qayb buu naga yahay ilaahay waa qofka inuu xaqiiqada 100% inuu mu'min yahay calaamaadka mu'miniinta inaan ku sheegno waa in ilaahay baa marka laakiin wixii ilaahay ku tilmaamay ahlu jannahi ilaahay tilmaantooda uu noo sheegay tilmaanta ugu muhiimsan waxaa weeyaan iimaanka oo ikhlaaska ku dhisan weeyaan tilmaanta labaad ahlu jannaha ay leeyihiin waxaa weeyaan adaa ulcamal saalix alwaajib qofka camalka oo waajib ka ah calal aqal ugu yaraan qof gudanayo calaa xasbi almatluub sidaa looga dalba islaamku u faray oo nabigeena u jideeyey waa inuu waajibka ilaahay u gutaa waajibka ilaahay sidaa waa inuu u gutaa waa tilmaanta labaad qof gudanayo arkaana iimaankii arkaanu islaamkii sida yihiin u gudanayo salaada waqtigeeda ku ilaalinayo ilaahay markuu ahlu jannaha ka hadlahay camalkoodii siday waajibkooda u gutaan
إلهي وحول والذين هم على صلواتهم يحافظون مؤمنين تقطع وقوة شنط الصلاة وقت قوض إلى دورون أولئك في جنات مكرمون بلاي ذلك صلاة وقت قوض إلى صلاة كستبى وقت قوض إلى ذلك سجنة إلهي لغو كرامين هذا ربطين إلهي جنة لغو كرامين أهل الجنة كم من وقت صلاة وقت قوض إلى صلاة وقت قوض إلى تتبضن بصلاة وقت قوض إلى مرة يسي تغيسي يو مرة سيق اللينا هاي يقلب لماذا اسكجر صلاة بيكضي عنك صلاة ورأسمالك قفك مسلم كون صلاة قفك وحيوتها أنت بمنزلة الرأس من الجسد ما راح قفك جيك صدقوية هي قفك الدين تيس صلاة أي الدين تيس ساسا يقطع قف ما راح كنتوا من ورانا إسلامي ما هو صلاة قفك عن لهنا إسلامي دي سمنا وراء ما راح كنتوا صلاة مركبة مهم أهل الجنة إلهي مركو تلمامة هي عمل قوضو تلمامة هي وحا بعد الإيمان إيمان كذب صلاة هي أقوعب مركز صلاة وقت اللغو إلى اليوم وحكم التهي من علامات أهل الجنة تطلع أهل الجنة علامين اللغو قران حيوي القرآن كان هو تلمامي تلمان طلبات تلمان تسدحات وحويان تلمان تقول waxaan ka dhignay iimaanka iyo ikhlaaska wada jira تلمان labaad waxaan ka dhignay qofka inuu amal saalix u leeyahay salaada ay ka mid tahay amal saalix cibaado oo cibaado u leeyahay qof ilaahay caabudayo ayda badan baa ku soo aroray أهمية العبادة في الإسلام بأنواعها وعلامتها إيمانك كذب عمل صالح وصلاة يوجه الرئيس علامتها السدحات وحوي وقفك أهل الجنة لو قرنها والاجتناب عن المحارم قفك وإنه كدر صلاة وحيالها بكحرمي وحيالها الله كحارتمي وإنه كدر صلاة وحلال وحي إلهي كحارتمي اسك إلهي وحالا حارنتها عنن وهذا الكحارنتها كهذن ودغن كحارنتها اسك إلهي الزنة يفاحشة اسك إلهي تمشة إلهي إن هذا يدقى هذا يلقها يقعمها هذه علوشة حارنتك وذا إلهي انت أصبح مرك حارنتنا اسك إلهي صالح الرب إنه عرب هذا حارنتك إلهي سوضا بين يحن أذن قالن وبين يحن أذن قالن إن دقى هذا مرت حارنتك إلهي سوحمان أذن دقي سنين عرب هذا إلهي سو دقى هذا إلهي سو إن هذا وإن هذا حارن قد داوونه دقى هذا حارن قد دقي سنين وحنتا وحيالة باطلة حساحن منكرات كأي اسك إلهي سو إن هذا حارنتك إلهي سو وحيالة من أذن داوونه سنمانتا شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاة له بساق شراب الحب يعرف بالمذاق
وما كل السقاة له بساقي. أحب الله عن أدب وصدق، ولا أرضى سوى التقوى خلاقي. شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاة له بساقي. شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاة له بساقي. أحب الله عن أدب وصدق، ولا أرضى سوى التقوى خلاقي. إذا ما عشت لا أنسى إلهي، به أسمو من الأخرى المراقي. يعز علي ترك الحب عندي، ولو بلغت بي الروح التراقي. تركت جميع خلق الله دوني، شغلت عن الخلائق باشتياقي. شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاة له بساقي. شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاة له بساقي. أحب الله عن أدب وصدق، ولا أرضى سوى التقوى خلاقي. وشوقي قد مزجت به رجائي، على خوف فمن خوفي مذاقي. ومن عرف المحبة عن يقين، حرام أن يميل إلى فراقي. وكيف أحب غير الله يوما، وليس سواه في الأكوان باقي. شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاة له بساقي. شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاة له بساقي. أحب الله عن أدب وصدق، ولا أرضى سوى التقوى خلاقي.